kulan hawleedkan iyo lagu gorfeynayay ilaalinta iyo la tacaalida xaaladaha degdega ah ee hooyada iyo dhallaanka oo muddo 10 cisho uga socday dhakhaatiir ka kala socotay gobolada Togdheer, Sool iyo Sanaag ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Burco. kulankan oo hagayay ururka dhakhaatiirta Soomaaliland ayaa waxa xubnaha ka soo qaybgalayaasha lagu siiyay casharo ku saabsan sidii ay ula tacaali lahaayeen xaaladaha degdega ah ee u baahan ka fiirsashada waqtiga dhalmada ee hooyada iyo dhallaanka. Macallin Cabdiqani oo ah macalinka bixinayay casharadani ayaa amaanay ka qaybgalayaasha sida habsamida leh ay uga faa'iideysteen muddadii uu socday kulankani. Xuseeya xaalada degdega la soo xiriira hooyada xilliga dhalmada iyo ilmaheeda. runtii waxaan rajaynayaa wixii laga faa'iiday ka soo qaybgalayaasha ka faa'iideen inay degmooyinkii iyo magaalooyinka kala yimaadeen ay halka joogaan ay wax kaga qabtaan kuna yareeyaan dhimashada hooyada. agaasimaha fulinta ururka dhakhaatiirta Dr. Maxamed Yuusuf Cilmi oo kulankani ka hadlay ayaa isaguna sheegay in loo baahan yahay in xubnahani ay kula laabtaan deegaanadii ay ka yimaadeen wixii ay halkani ka faa'iideysteen. dhimashada raaca uu ku badan yahay hooyooyinkii marka in artaasi intervention wixii lagu yareyn lahaa ayuu kani ka mid kookay markaas waxaan filayaa وتواجدين مهضة يعني ما تيجي فاهم وكذا ما تيجي سوق البركينة waxay ka socdeen gobolada waxa ahayd Burco Laascaano iyo Argaal. waxa iyaguna ka dareen celiyay ka soo qaybgalayaasha kulankani oo sheegay inay tahay muhiim in la xoojiyo kulamada caynkan oo kala ah si loola tacaalo dhimashada hooyada iyo dhallaanka. Cabsaaq Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Somaliland Burco.